madrasadan oo lagu baran doono quraanka kariimka isla markaasina ay hirgelisay xildhibaan Luul Ibrahim Cumar Daafadow oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee dalka ayaa waxa laga hirgeliyay mid kamid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka danyarta ee ka soo barakacay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaanaya magaalada Baydhabo isla markaasina xilligan ay saameysay abaarta ka jirta guud ahaan dalka madrasadan quraanka kariimka ayaa ka kooban qolal iyo musqulo waxaana dhigta 100 arday oo dhamaantooda la barayo quraanka kariimka waxaana loo qaybiyay kutubada quraanka kariimka iyadoona sidoo kale xildhibaanada madrasooyin kale ay ka hirgelisay magaalooyinka Muqdisho iyo Diinsoor ugu horreyn waxa goobta ka hadlay qaar kamid ah waalidiinta iyo culimada xaafadda iyagoona si aad ugu mahadceliyay xildhibaanadan ka hirgelisay xaafadooda dugsi quraankan oo iyagu aad ugu baahi qabeen aan fadhiyna isun kureerna fikradii agoodi oo abuurista agoodi in dugsi la dhis oo madrasa laga dhis oo naga garab siistay xildhibaan Luul Ibrahim Daafad oo sanadmadash dawladda federaalka ma wana isun kureerna waa furitaanka madrasada dhisi waa furitaanka geentan fadhiyna meelaha isun kureerna xildhibaanada iyada oo mahadsanta marka jazaakumullahu khayral jazaa anti yad walka bes anti alhamdulillah saadarti jazaakumullahu horta jaab ilaahi ajal allah waafis ma wana ajar usaga helaan ma kala jara marka oo socodsiga gobolkeen alhamdulillah ma baahanta inii oo maarnay deer oo la dhiso iyaal oo xaras ayaan ruuha si kala gooshto ma sha Allah han oo wali salwada intay ka kaayno unubu alhamdulillah ma sha Allah dhamaatirin koon roon baraka uuna radin soo agna dadkii arsaga degiyo agna miinaba boqolkiiba boqol mahadsantaan taasatan xildhibaana inni agyaano dhamaanta soo Luul Ibrahim oo dhowr jeer aan ku qabtay degmada Diinsoor wal baraka usubunyo salaga burusi degmada Biiril Diinsoor salaga burusi walan qabtay raashin noo qaybasti marka soo mahadnaqna boqolkiiba boqol xildhibaan Cusmaan Nuur Aadan oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya wakiilna ka ahaa xildhibaanad Luul ayaa ka hadlay muhiimadda madrasadan ay u leedahay dadka degan xaafadani ما أنت صنك مهدنا هلبان لولي أو مدرسة إس قرشك لودي أنون هانسن وكيلة إن إس ده فرن وإيد صنك مهدنا أجر إحسانات الدنيا آخر ليد الله قسيس ما سو بستيا والمرد للاجي صوبته ما وانا إن جامعة لديسو لده فرو دكسل إسكول لديسو لده فرو ما كمهم سنا بقول كي بقول إن لدس الدكتور قرآن المدرسة لدس الدعاء فروك مهمسي ساس درادة إيد يدوسون كمهات نجنا سراج شيء ساقور بهين تقرنك.